بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن داوديال كسو دواada warka telefishinka Cabud waa qaadayo kala aad ka daawataan xaruntiisa dhexe degmada Cabud waxaana la diyaarani waa Maxamed Cabdi Jabar Sane qodobada aad ku daawan doontaan leedankiina idinku kugu soo gudbin doona waxa kamid ah madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor oo lagu soo dhaweeyay magaalada Istanbul ee caasimadda labaad ee dalka Turkiga شريف آدم شريف إبراهيم شريف محمد شريف إبراهيم oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed oo soo gaaray magaalada Cabud ciidanka booliska Galmudug oo inta u dhaxaysa degmada Cabud iyo gaalkacyo ka qaaday isbaarooyin qodobadaasi iyo qodobo kale ayaynu idin haynaa marka horese qadar raadiga bulshada أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمر الباقي أفديك wargelin dhammaan waxaa lagu wargelinayaa bulshaweynta Soomaaliyeed ee ku nool degmada Cabud iyo nawaaxigeeda in ay yimaadeen degmada Cabud Shariif Maxamed Shariif Ibraahim iyo Shariif Aadan Shariif Ibraahim culimadaasi oo ku takhasusay xanuunada ruuxiga ah iyo kuwa nafsiga ah sida jinka isha sixirka walwalka waswaaska isla hadalka wadna xanuunka joogtada ah sidoo kale culimadaasi waxa ay u leeyihiin daweynta khibrad muddo dheer ah oo gaarayso ilaa 15 sano iyada oo Ilaahay sababtooda ku caafiyay dad badan oo ku nool dalka iyo dibadiisa loogana caalwaayay xanuunada ruuxiga ah iyo kuwa nafsiga ah culimadaasi waxay xarumo kala duwan ku leeyihiin magaalada Muqdisho iyo meelo kale oo kamid ah gobolada dalka Soomaaliya culimadaasi waxa ay degmada Cabud joogi doonaan muddo kooban culimadu waxa ay ka howlgalayaan xarunta isku daweynta Quraanka iyo sunnaha Nabiga sallallahu alayhi wasallam ee al-Shifaa oo ku taala degmada Cabud gaar ahaan xaafadda Horseed agagaarka El Saudi fiiro gaar ah isqoristu waxa ay ka socotaa xarunta cusub ee markazu Shifaa wixii faahfaahin ahna waxaad kala xiriiri kartaa eberle xal 7 3329 36 ama eberle xal 8 47 haddaba balantayadu waa inaga oo horay u gaarnaa markazu Shifaa litadaawi bil qur'aani was sunnah أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمر الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك markale isku soo laabasho wacanta wadayaal madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor ayaa waxa uu gaaray magaalada Istanbul ee caasimadda labaad ee dalka Turkiga halkaas oo ay ku soo dhaweeyeen qaar ka mid ah shacabka Soomaaliyeed ee ku nool dalka Turkiga sida qodobkaasi inoo faahfaahinayso wariyaha Xamdilaahi Maxamed Daahir wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor ayaa waxa lagu soo dhaweeyay magaalada Istanbul ee dalkaasi Turkiga iyaga oo ka ambabaxay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya mas'uuliyiinta soo dhaweysay waxa kamid ah safiirka Soomaaliya ee dalka Turkiga safiir jaamac safiir ku-xigeenka dalka Turkiga Bishaar Ugaas gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Turkiga Sheekh Maxamed ganacsatada Istanbul ardayda iyo bulshada qaybaheeda kala duwan madaxweyne Axmed Cabdi Kaari Qorqor waa safarkii ugu horeeyay ee uu ku tago dalka Turkiga tan iyo markii loo doortay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug waxaana la filayaa in uu kulamo kala duwan la qaato jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi Turkiga safaaradii jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Turkiga degan oo meelo badan isaga yimi magaalooyinka dalka Turkiga oo dhan isaga yimi waxaan ku soo dhaweynay wafdigii hogaaminayay madaxweynaha Galmudug mudane Axmed Cabdi Kaari iyo wafdigii uu hogaaminayay oo si nabada ku yimid dalka Turkiga aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in aanu madaxweynaha iyo wafdigiisa ku soo dhaweyno dalka Turkiga runtii xamaasad badan baa ka muuqata dadweynaha ka soo qayb galay soo dhaweynta xalay oo dhan waa la soo jeeday imika salaada subax baan tukanaynaa oo diyaaraddu imika timi waxaa ka muuqata madaxweyne ku soo dhawo dalka Turkiga adiga iyo wafdigaaguba waad aragtaa dadkaagu siday ku jecel yihiin oo marxaatimo doonto maanta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay
waa waqti dambe waad soo daasheen waxaan idin rajaynayaa safarkiinu inuu guulaysto. hadlayo magacayga Cabdullaahi Cadceed Rooble ahna jaaliyada degan Finland kuna hadlaya magaca jaaliyadaha degan qurbaha. waxaan halkan ku soo dhaweynay oo muddo oo aan sugaynay madaxweynaha Galmudug mudane Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor. waxaanu leenahay madaxweyne soo dhawaaw ku soo dhawaaw qalbi furan ku soo dhawaaw dadku jecel iyo jaaliyad ku jecel oo halkan kugu soo dhaweynayso. waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta anagoo ah jaaliyada Turkiga iyo jaaliyadaha qurbaha ka kooban aan si wanaagsan ku soo dhaweynay. ku soo dhawow anoo salaan kaaga wada jaaliyada guud ee degan wadanka Turkiga oo runtii ka kala yimid maanta gobollo kala duwan saacada la joogo oo waqti dambe ah si ay madaxweyne ku soo dhaweeyaan oo maartay darta ay u soo baxeen. marka aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay safarkaaga gaaban ee aad ku soo gaartay wadanka Turkiga. madaxweyne ku soo dhawow gacmo furan ku soo dhawow qalbi furan. madaxda safaaradda Soomaaliya ku leedahay dalka Turkiga oo hogaaminayo safiirka safaaradda jaaliyada sharafta leh qaybada kala duwan oo ganacsato iyo ardo iyo mas'uuliyiin kale inta isugu jira dhammaan inta ka soo qayb gashay munaasabadan sida qiimaha badan lagu soo dhaweyseen. waxaan leenahay aroor wanaagsan subax wanaagsan waa mahadsantihiin. waxaan ka mahadcelinaynaa sida diiran sharafta leh walaalnimada ka muuqato nagu soo dhaweyseen magaalada Istanbul. waxaan runtii ognahay inaad waqti badan soo jeedeen xilligii la jiifan lahaa habeenimada ahayd darteena u soo safarteen u soo aadeen airportka oo u jira masaafo dheer aan ognahay inuu magaalada u jiro. aad iyo aad baan runtii noo farxad gelinaysaa sida aad nagu taagneedeen oo noo sugayseen waana mahad ballaaran baan ka celinaynaa. waa ilaahay mahadiis waa idin nabad nimid waa isu nimid. safar gaaban baan halkan ku soo gaarnay magaalada Istanbul wadanka Turkiga oo safar shaqo ah oo qayb ka tihiin oo taladiina iyo tilmaamihiina aad ku leedihiin oo dadka aan uga maarmin aad ka mid tihiin idinka iyo mas'uuliyiintiina dhammaan iyo safaaradda. waan wada joognaa bariyaanu joogaynaa insha Allah. bariyahaasna talooyinkii iyo hawlihii muhiimka ahaa ee ay tahay in Soomaaliya guud ahaan iska wareysato ayaanu iska wareysan doonaa idin xog warrami doonaa idinkuna taageeradiina iyo talooyinkiina noo soo gudbi doontaan. aad iyo aad ma santihiin. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh. xamdilaahi maxamed daahir CWTV magaalada Caabudwaaq. ciidanka booliska dowlad goboleedka Galmudug ayaa howlgallada amniga lagu xaqiijinayo waxa ay ka sameeyeen inta u dhaxaysa deegaanada Balisonkor iyo sidoo kale Laamo Weyne oo dhamaantoodba hoos yimaada degmada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud. saraakiisha howlgalkani hogaaminaysa ayaa waxaa la sheegay inay howlgalkani jawaab uga dhigayaan isbaarooyin sharci darro ah oo xilliyada habeenkii ah lacag looga qaado shacabka iyo gaadiidka u kala socdaala degmada Caabudwaaq iyo sidoo kale magaalada Gaalkacyo. ciidanka booliska dowlad goboleedka Galmudug ayaa waxaa la sheegay in ay wadada isku xirta magaalada Gaalkacyo iyo Caabudwaaq ay ka qaadeen isbaarooyin ay dhigteen maleeshiyaad. howlgalkani ayaa waxaa hogaaminayay taliye ku-xigeenka booliska ee qaybta gobolka Galgaduud gaashaanle dhexe Cabdi iyo sidoo kale taliyayaasha saldhigyada booliska degmada Caabudwaaq iyo Cadaado. Shariif Aadan Shariif Ibraahim iyo Shariif Maxamed Shariif Ibraahim oo kamid ah culimada Soomaaliyeed ee ku takhasusay xanuunada ruuxiga ah ayaa waxa ay soo gaareen magaalada Caabudwaaq sida ay qodobkaasi inoogu faahfaahinaysa xamdilaahi maxamed daahir. Shariif Aadan Shariif Ibraahim iyo Shariif Maxamed Shariif Ibraahim oo kamid ah culimada Soomaaliyeed kuna xeel dheer xanuunada ruuxiga ah ayaa maanta waxaa si diiran loogu soo dhaweeyay degmada Caabudwaaq. soo dhaweynta kadib hoolka soo dhaweynta ee airportka ku meel gaarka ah ee Moqor ee magaalada Caabudwaaq waxaa warbaahinta kula hadlay qaar kamid ah shacabkii soo dhaweeyay culimada waxaana ay sheegeen in loo baahnaa in ay culimadu soo gaaraan deegaanka. halkan maanta aan ku soo dhaweynaynaa wafdi balaaran oo ay hogaaminayaan Shariif Aadan Shariif Ibraahim iyo Shariif Maxamed Shariif Ibraahim oo aqoon durugsan u leh daaweynta xanuunada ruuxiga ee ku dhaca nafta sida isha iyo shayaatiinta iyo sixirka noocyadiisa kala duwan. xaqiiqatan culimadu degmadanu aad baa looga baahnaa
dad ku takhasusay xanuunada noocaasa daaweyn kara waanu soo dhaweynaynaa haddaan nahay dadweynaha ku nool degmada Caabudwaaq. Waa soo dhaweynaynaa afar rabnaa ku soo dhaweynaynaa culummadanadii dadkoodii bay u yimaadeen degaankoodii bay yimaadeen waa ku soo dhaweynaynaa annagoo u baahan inay haddii alla kuuri waxa weeyaan xanuunada dhibaatada wax alla waxa jira haddii alla kuuri Caabudwaaq ay qabaan inay haddii alla kuuri waxa weeyaan uga diin akhriyaan baan ku soo dhaweynaynaa aad baan ugu baahnay wixii dhibaato oo dhan baan haddii alla kuuri la kaashanaynaa waa culummadanadii waa dadkoodii waa dalkoodii waa soo dhaweynaynaa kala afar baan ku soo dhaweynaynaa walaalnimaan ku soo dhaweynaynaa walaal baan ku soo dhaweynaynaa sharaf baan ku soo dhaweynaynaa waxaan ahayd noo wadaan oo khayrka ah annaguna waa ka gudoomaynaa annagana ilaahay aan noo aqbalo waa ku soo dhaweyn mar labaad iyo mar saddexaad baan ku soo dhaweynaa daaweynta quraanka waxyaabo badan dhammaan anoo ku hadlayno afka shacabka iyo degmada Caabudwaaqna aad baa soo dhaweynayna culimada soo dhawaada Xamdilaki Maxamed Daahir Caabudwaaq TV garoonka Maqoreed ee magaalada Caabudwaaq. guud ahaan daawadayaal waxaynu intaas ku soo gabagabaynaynaa warkii telefishinka Caabudwaaq anigoo ah Maxamed Cabdi Jalaqsan ayaa idin la socodsiinayay warka iyaga xiga midkan ayaa inoo madalahay sidaas iyo nabaday.